wanaagsan halkan nagala socotay galowga joogtaan iyo soolba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada war waxaan daliyo dibadba idinka hayno oo halkan idinku soo gudbin doona hadii eeba yiraahdo qodobada wararkeena ugu darroona waxa kamid ah madaxweynaha dalka Eritrea ayaa ku eedeeyay dawladda Mareykanka in ay taageerayaan ururada shabaab Tigray iyo sidoo kale Onak Shile ayna doonayaan inay gabi ahaanba burburiyaan dalka Ethiopia. dawladda Ethiopia ayaa sidoo kale horay ugu eedeysay dawladaha reer galbeedka iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay taageeraan ururada argagixisada oo ay kamid yihiin ururka shabaab iyo ururka TPLF oo dawladda federaalku ay sanad ka hor u aqoonsatay inuu kamid yahay ama ay ku dartay liiska argagixisada. dagaalka waqooyiga dalka Ethiopia ka socda ayaa galay wajigii saddexaad iyadoo saraakiisha ciidamada axmaaraduna ay ka baxsanayaan furimaha hore ee dagaalka. jabkii ugu weynaa ayaa soo gaaray qowmiyadda axmaarada iyadoo magaalooyinka Goojaan, Bahardar iyo sidoo kale Gondarba laga qaxayo xaalad aad u adagna ay ka taagan tahay halkaasi. waxa dhinaca kale cabsi weyn ay soo faad saartay magaalooyinka waaweyn ee gabi ahaanba deegaanka axmaarada kadib guulo waaweyn oo ciidamada Tigreegu ay halkaasi ku soo bandhigeen. dawladda Ethiopia oo ruqsigii ganacsi kala laabatay shirkadaha shidaalka ka baadhayay dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo shacabka halkaasi ay shirkaduhu ka shaqeynayeen ku nool ay dhibaato xoogan gaarsiiyeen ayna la ildaran yihiin xanuuno aan la garanaynin isla markaana looga shakisan yahay in shirkadahaasi iyo shaqaalahoodu ay ku beereen halkaasi. magaalada Jigjiga xaalad adag ayaa ka taagan iyadoo xukuumadda madaxweyne Mustafa Cagjar ay qabanqaabinaysay shir la sheegay in looga arinsanayo xaaladda dawladda deegaanka Soomaalida balse xisbiyada mucaaradka qaarkood ay gabi ahaanba gaashaanka u dareereen waxaana markii ugu horeysay arintaasi si weyn uga hor imaaday xisbiga Onalif waxaana sidoo kale maantana si weyn uga hor imaaday xisbiga Xurriyadda iyo Sinaanta ee loo soo gaabiyo FEB iyadoo xisbiyada kale ee ku daba jirana la sheegayaba inay gabi ahaanba gaashaanka u daruuri doonaan. waxay xisbiyadan mucaaradka ay si weyn uga hor imaadeen ayna ku biyadiisan yihiin abu socodka iyo sidoo kale ajandaha xukuumadda madaxweyne Mustafa Cagjar ay u soo bandhigtay oo gabi ahaanba ay sheegeen inaysan u cuntabi karin. qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan waxaana stuudiyaha gula sugan saaxiibkay daacad oo isha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia. daacad soo dhow waan dhawaysantaw haddii aynu ku bilowno madaxweynaha dalka Eritrea wuxuu eed weyn dusha uga tuuray dawladaha reer galbeedka oo horkacayo dalka Mareykanka oo ku eedeeyay inay doonayaan gabi ahaanba inay burburiyaan dalka Ethiopia oo Mareykanku dhaqaale badan ku bixiyo uu taageero ururada argagixisada sida ururka shabaab Onak Shile iyo sidoo kale Tigrayga oo dawladda federaalka Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea ay u yaqaanaan ama ay ku dareen liiska argagixisada. bal maxaa ugu dambeeyay xagee la kala maraya eedda ofawarki ama siyaasi ofawarki uu ku eeday dawladda Mareykanka maxaa ka jira? Santiago aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki waraysi uu xalay bixiyay una siiyay telefishinka Era TV ee dalka Eritrea waxa uu ka hadlay colaadda ka taagan bariga Afrika ee u dhaxeeya dawladda federaalka Ethiopia iyo sidoo kale falaagada TPLF iyo reer galbeedku qaabka ay u taageerayaan argagixisada ka dhaqaaqayso gudaha iyo bariga Afrika. Isaias oo arrimahaas ka hadlayay bariga Afrika waxa uu yiri midnimada iyo wadajirka nabadgelyo ee Ethiopia waa mid muhiim u ah bariga Afrika gaar ahaan qaaradan iyo goboladan isku xidhan sababtuna waa ajandaha guud ee kooxda TPLF Ola iyo Al-Shabaab ay ku doonayaan inay ku burburiyaan kuwaas oo khatar ku ah gobolka waxayna ku heshiiyeen in la burburiyo Ethiopia sababtooduna waa in tiirka ugu muhiimsan qaaradani ay meeshaba ka saaraan. reer galbeedka ayuu sidoo kale u soo jeediyay eed xoogan waxa uuna yiri Mareykanka iyo Yurub mar walba waxay wataan daran qaran oo iyaga u gaar ah xitaa haddii ay yihiin koox argagixiso ah oo danahooda qaran ilaalinaysa sida Al-Shabaab iyo Al-Qaacida oo ay ku sifeeyeen argagixiso ayaga ayaa ku fushada danahooda siyaasadeed iyo ujeedooyinka ay ka leeyihiin markaasi dalalka ay doonayaan inay fashiliyaan. ma jirto ujeedooyin Mareykanka iyo Yurub ay ka fulin doonaan in la dhiso dawlad nugul oo wadan kasto adduunka kamid ayuu yiri xitaa markay arkaan dawlad dadkeeda jecel yahay waxay ku soo rogayaan cunaqabatayn iyagoo caburin haya sarreyn una didaya in dawladdaasi ay noqoto mid sarreyso sidoo kalena shacabkeedu uu noqdo mid fikirkiisa wax soo saarkiisa iyo sidoo kale nabadgelyadiisa si wada jir uga shaqeeyo waxayna rabaan macaawinada yar ee ay gaarsiiyaan wadamada dunida in ay ku gumeystaan. reer galbeedku saameynta ay ku leeyihiin Ethiopia ee aynu eegayno ayaa tusaale u ah falalka foosha xun oo markii la afgambiyay TPLF oo 27 sano xukumaysay dalka Ethiopia reer galbeedku arintaasi si weyn ayay uga cadhoodeen balse shacabka Ethiopiaanku waxay heleen xurriyad madax banaani iyo in ay afkaartoodii siyaasadeed si nabadgelyo ah u soo bandhigaan iyadoo oo heshiis lala galay
in xisbiyadii ama ururadii mucaaradka Ethiopia dagaalka kula jiray ay heshiis la qaataan. TPLF waxay ilaabeen in xukuumadda Abiy Ahmed ay sidoo kale dhanqaryeeyaan ama inaysan la shaqayn. waxa uu intaasi ku daray ama sababeeyay in reer galbeedku ay si weyn u taageersan yihiin al-shabaab iyo sidoo kale ururada argagixisada ah ee TPLF iyo Naqshena oo dowladda Ethiopia baarlamaankeedu u ansixiyay in ay ka mid yihiin ururada argagixisada. Santiago waxaad ogtahay arintan uu ka hadlay madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki in horay dowladda Ethiopia television-keeda waaxda luqadda Ingiriiska war laga sii daayay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khilaaf oo kala dhaxeeyo taliska Addis Ababa in si weyn loogu eedeeyay arrimo ay ka mid yihiin inuu doonayo inuu khalkhal siyaasadeed iyo sidoo kale dhibaateyn iyo in la burburiyo gudaha dalka Ethiopia in uu ka shaqeynayo una ku abuurayo Ethiopia ururo ka isha waxa weeye ka khatar badan ururka al-shabaab. waxa kale oo Ethiopia sheegtay in cilaaqaadka si xumaan haya Addis Ababa iyo Muqdisho uu sabab u noqon karo in Soomaaliya ay burburto. dhinaca kalena waxay u soo jeediyeen hadal markaasi u muuqday inuu caga jugleynaha ilaa iyo haddana dowladda Ethiopia markii laga yimaado waraaq ay shaacisay si rasmi ah oogama aysan bixinin raaligelin. dhinaca kale waxaad isha ogeyd Santiago dowladda Ethiopia dhowr jeer oo hore waxay sheegtay waliba Abiy Ahmed oo maalmo dhaweyta ku sugnaa deegaanka Oromia iyo Soomaalida meel qaybo ka mid ah waxa uu sheegay in reer galbeedku ay doonayaan wax soo saarka Ethiopia in ay dhanqariyayaan dhinaca kalena ay curyaamiyaan iyagoo u gacan haadinayo in ururada argagixisada ah ay Ethiopia si weyn uga falgalaan. waxa uu sheegay kiishka qabandiga ah iyo saliida yar ee la soo gaarsiiyay Ethiopia in la doonayo in lagu gato xurriyadii iyo madax banaanadii dalkaasi. marka warka hadda ka soo baxay Isaias Afwerki iyo warkii hore uga soo baxay dowladda federaalka Ethiopia inta badan Santiago waxyaabo isa saameeyo ama isu agagway, laakiin waxaad moodaa in Isaias Afwerki iyo ninka la Abiy Ahmed hadda ay saaran yihiin isku doon oo reer galbeedku aysan horeyba rajo uga qabin. Isaias Afwerki waxaad ogeydba in ay saarayd cunaqabatayn muddo aad u dheer oo dowladaha reer galbeedku ay ku soo rogeen dowladda Mareykankuna ay meelo isha waxa weeye gees kastaba ay ka soo afjartay oo maanta uu safarka kale uu ku bixi karaa tahay inuu qaaradda Afrika booqdo, laakiin qaaradda Afrika uusan meel looga bixi karin. dhinaca dagaalada ka socda waqooyiga dalka Ethiopia wajigii saddexaad ayay labada dhinacba ku dhawaaqeen oo hadda la isku qalab qaatay. dhinaca kaleeto saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada New Booliska ee deegaanka Axmaarada waxaa la sheegay inay furimaha ka baxsadeen oo la arkay una iyaga oo dhuumaalaysanaya qaarkoodna kaniisada ku jira oo ku gabanahaya. bal maxaa ugu dambeeyay dagaalkii waqooyiga ka socday markii laga reebo Isaias Afwerki iyo sidoo kale eedeymaha dalka dibadiisa ugu jeedinaya sida reer galbeedka dowladda Mareykanka? Santiago sidaad ogtahay ba dagaalo xoogan ayaa ka socda waqooyiga ee gobolka Gondar ee deegaanka Amxaarada iyo sidoo kale xuduudda deegaanka Tigreega uu la leeyahay dalka Eritrea gaar ahaan Agan Baadhame iyo Shire iyo sidoo kale deegaankan Salambasa. warbixino hadda aan helayna waxay sheegayaan in magaalada Shireero ay khatar ugu jirto inay mar kale ka baxdo gacanta TPLF ayna mar kale ku dhacdo gacanta ciidamada dowladda federaalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea ee aagaasi dagaalka xoogan kula jiro falaagada TPLF. sidoo kale dhinacyadan dagaalamahayo waxay isku dayayaan in mar ay gudaha u soo galaan gobolka Tigreega si ay u qabsadaan magaalada caasimadda ee Maqale. ciidamadan TPLF meesha laga hagahayo ama maskaxdooda ay fadhidaan in ay bataatanba ay la wareegaan. marka magaalada Shire arrinta ayaa laga soo sheegayaa. dhinacan deegaanka Amxaarada markaynu u nimaadno dagaalo goosgoos ayaa ka socdo inta u dhaxaysa magaalada Gondar iyo sidoo kale magaalada Adyarkay oo TPLF maalmo ka hor ay qabsatay. dhinaca kalena ay ka soo dhaqaaqday magaalada Gondar waxaa la sheegayaa 90 kilomitir ilaa 80 iyo dhowr kilomitir in ay u jirto TPLF ayna wali sii siqahayaan. intaas markaynu kaga nimaadno dagaalkana saraakiisha ugu sarsareysay ciidamada maleeshiyaadka Faano iyo sidoo kale ciidamada New Booliska dowladda deegaanka Amxaarada waxaa la soo warinayaa intoodii badnayd in ay joojiyeen dagaaladii ay kula jireen TPLF dhinaca kalena ay banaynayaan furimaha dagaalka. Simen Kasai oo ka mid ahaa saraakiisha ugu sarsareysa ama ahaaba gudoomiyaha guud ee kooxda maleeshiyaadka ee Faano ee Amxaarada oo ka soo goostay furimaha hore dagaalka ayaa bilihii u dambeeyay ku gabanhayay magaalada Bahardar ee caasimadda deegaanka Amxaarada. ciidamada New Booliska deegaanka Amxaarada ayaa maanta waxay ka qabteen magaalada Bahardar gudaheeda gaar ahaan qabalaha saddexaad iyagoo ugu dambeynna xabsiga
xabsiga u taxaabay waxaana hadda la sheegayaa in magaalada Bahardar gudaheeda ay ka jiraan ismaandhaaf iyo isqaqabsi u dhaxeeyo ciidamada liyu booliska dowladdeegaanka Amxaarada maleeshiyaadka Faano iyo sidoo kale militariga iyo ciidamada federal boolisku oo iyagu doonayo inay u sii qaadaan magaalada Addis Ababa halka Amxaaraduna ay diidan tahay sidoo kale waxay cabsi xoogan soo wajahday magaalooyinka Gondar iyo sidoo kale Bahardar iyo magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Amxaarada magaalada Waldiya Dhasay Kombolcha Agas oo TPLF qaybana ay ka soo gashay qaybana ay dagaal ka wadaan qaybaha kalena la keenayo dhaawacyadii iyo dadkii ku soo dhintay furimaha hore dagaalka iyadoo inta badan la sheegayo in meydadka iyo ama bakhtigan idhaahdee ciidamada lagu soo laayay furimaha ay meel walba buuxiyaan isbitaaladii qarmuun looga kala cararay marka guud ahaan xaaladda dalka Itoobiya maalinba maalinta ka dambayso way sii xumaanaysaa xaaladiisa dagaalku hadda waxaa la sheegay in uu galay wajigiisa saddexaad oo dowladda Eritrea bataatanba lagu wareejiyay taliskii guud ee ciidamada dalka Eritrea dalka Itoobiya aan idhaahday oo siyaas Afwerki hadda uu yahay shakhsiga sida rasmiga u hogaamin doono dagaalka u dhaxeeya dowladda federaalka Itoobiya iyo Eritrea dhinaca iyo sidoo kale TPLF taasoo macnaheedu yahay in waliba Eritrea hadda waxaa la sheegay in carruurta yararka ah haweenka askartii hore shaqada uga baxday in ay ku soo celisay xeriyihii ciidanka maalmahana ay qorsheynayso ama in ay qabsato magaalada Maqale ama waxa weeye in ay ka raja dhigto dagaal dambe oo ay la gashay TPLF dowladda federaalku waxaa la sheegay in ay kala laabatay aqoonsigii ama warqadihii shaqada ay ku qabanayeen shirkadaha shidaalka ka qoda dowladdeegaanka Soomaalida dhinaca kaleeto magaalada Jigjiga isqaqabsi iyo ismaandhaaf siyaasadeed oo adag ayaa ka taagnaa maalmihii ugu dambeysay balado noo soo koobaya xaaladda dowladdeegaanka iyo sababta shatida lagala laabtay ama warqadii aqoonsiga loogala laabtay shirkadihii shidaalka ka qodayay gudaha dowladdeegaanka Soomaalida ama baadhahayba maxay tahay Santiago aad baad u mahadsan tahay wasiirka macdanta tamarta iyo shidaalka ee dowladda federaalka Itoobiya Takale Uma oo maanta la hadlay warbaahinta warsaxaafadeedna ku qabtay magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya waxa uu sheegay in shatigii ganacsiga ama fasaxii ama ruqsadiiba ee kan sheekay dadkeena Soomaaliyeed fahmayaanba in ay kala noqdeen shirkadii loo yaqaanay Bole GCL ee laga lahaa dalka Shiinaha taas oo la xaqiiqsan yahay in ay dhibaatooyin ay ka mid tahay in muddadii ay ka shaqeynaysay dowladdeegaanka Soomaalida aysan wax horumar ah ku soo kordhinin dhinaca kalena dadka ku sugan deegaanka Jeexidin ee degmada Dhoboweyn Elale Quraan Cobole iyo deegaano kale oo ka tirsan Boqoysha guud ahaan dowladdeegaanka Soomaalida in ay ka geysteen in halkaas ay ku daadiyeen sun aad u xoogan oo ay ku dhamaadeen xoolihii iyo dadkii ilaa haddana degmooyinka Dhoboweyn iyo sidoo kale Elale dadka ku dhaqan ay la daala dhacayaan xanuuno aan la garanay oo dadku afka iyo sanka iyo dhagaha ay ka sii deynayaan dhiig maalmo kadibna qofku uu u geeriyoonhayo taasoo warbaahinta reer galbeedka ugu afka dheer ee Guardian ee ka soo leedahay dowladda Ingiriisku hadda ka hor ay ka hadashay gabadha deegaanka Soomaalida u dhashay ee la dhaho Juweeriya ayada laftigeeda ay waraaq ka qortay barnaamijkaasi maqal dheer oo kaga hadlaysay dhibaatada ay ku hayso dowladda Itoobiya shirkadaasi kala noqoshadeeda ruqsada deegaanka Soomaalida waxay isweydiinayaan in aysan wax muhiimada ama ahmiyad u soo kordhinayn hadiiba aan la weydiinaynin waxa weeye dadka Soomaaliyeed magdhowgoodii iyo inay u soo celiso iyo dhibaatada halkaas ay ka geysatay in lagu la xisaabtamo waxayna sheegeen dadku in tani ay tahay in Itoobiya ay ku qarinayso ceebtii iyo fuxshigii ay ka geysatay dowladdeegaanka Soomaalida iyo sidii dhigmiiratada ahayd ee uga shaqeynaysay gudaha dowladdeegaanka Soomaalida taasoo ay ku sheegeen in Itoobiya shirkadani aysan kala sokaynin gumaystahan uu adeegsanayay shirkadahani in shacabka Soomaaliyeed ay laayaan markaan u soo noqono dhinaca dowladdeegaanka Soomaalida iyo khilaafyada ka taagan waxaad ogeyd in xukuumadda dowladdeegaanka Soomaalida ay ku dhawaaqday shirweyne qaran oo bulshada Soomaaliyeed ay iskugu imaanayso dhinaca kale la doonayo in arrimaha siyaasadeed ee deegaanka ka taagan lagaga wada hadlo taas oo xisbiyada siyaasaddu ay iyagu sheegeen in shirarkaasi ay muddadii u dambeysay 2 sano ahayd ay xukuumadda ku cadaadinayeen dhinaca kale ay ka codsanayeen laakiin hadda xukuumadda oo laftigeedu ee dagaalkan waqooyiga culaysyo saaran iyo cabsi soo wajahdayba waxa weeye daraadda doonaysa in uu qabato shirkan dhaqaalana ku bixinaysa waxaa la sheegay in xisbiyada ay ka hor istaagtay in madaxdoodu halkaasi ay khudbad ka soo jeediyaan in ay afkaar ku yeeshaan in ay astaamahooda iyo calamadooda kaga qayb galaan in lagu xurmeyn waayo qaabka ergada xataa shirkaas waxa weeye daadihinayso iyadoo ay u muuqato in xukuumaddu sidoo kale ay diidayba dadka Soomaaliyeed inay ka soo qayb galaan oo dad golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo shakhsiyaad xog dowladda u shaqeeya kaliya iyo qandaraasleyda shirkaas loo ogolaaday shalay marka ururka ONLF ayaa ku dhawaaqay in aysan bataatan diyaar u ahayn inay ka qayb galaan shirkaasi dhinaca kalena ku gacan sayray ka qaybgalka shirkaasi sidoo kale xisbiga FEB ama xisbiga xorriyadda iyo sinaanta ee uu gudoomiyaha ka yahay Ibrahim Dheere
oo maanta asagana war-saxaafadeed kusoo saaray magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu sheegay in aysan bataatanba ka qayb geli doonin shirkaasi dhinaca kalena ay si weyn uga soo horjeedaan qorshaha ay doonayso dowladda deegaanka Soomaalida waxa uuna ku baaqay in loo baahan yahay in shirkaasi dib loo dhigo dhinaca kalena bulshada Soomaaliyeed la ixtiraamo caqligeeda maskaxdeeda garaadkeeda iyo garashadeeda si wax la isku ogol yahay meeshaasi ooga soo wada baxaan balse haddii taasi la waayo in aysan ka soo qayb galaynin wixii meeshaasi ka soo baxana aysan khusayninba bulshada Soomaaliyeed ee la yeeshay shirkaasi waa loo qabanaya Santiago waxa kale oo maqlaynaa in shirkan uusan ahayn mid ku eg dowlad deegaanka Soomaalida uu yahayba mid Abiy Ahmed uu doonayo in ciidamada loo dirayo dowlad deegaanada ay isla wada ansixiyaan xisbiyada mucaaradka ah ee dalka Itoobiya ka howlgalo iyo sidoo kale dadka aqoon-yahan kadibna iyadoo la is ogol yahay in ciidamadaas fariimaha loo diro maadaama ciidanka Itoobiya uu dagaalku ku fashilmay aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa saaxiibkay daacad oo inala socodsiinayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya wixii ka soo kordhana wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa daawadayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo